Soo dhawaada asxaabay ku soo dhawaada Somali Scholars University. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato YouTube channelkayga, subscribe saar, videogana like saar. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkii labaad ee Business Administration, maareynta ganacsiga, nidaamka, qaab dhismeedka iyo hoggaanka shirkadaha. Horodhac waa maxay casharkan? Casharka koowaad waxaan ku baranay micnaha iyo muhiimadda Business Administration. Casharkan labaad waxaan si qoto dheer uga hadli doonaa qaab dhismeedka shirkadda, organizational structure, howlaha maamulka, management functions, noocyada maareynta, types of management, nidaamka goynta go'aanada, decision making, hoggaanka shirkadda, leadership, qaab dhismeedka shirkadda, organizational structure. Qaab dhismeedku waa nidaamka uu shirkaddu la tacaaliso shaqaalihiisii iyo qaybihiisaba. Wuxuu muujiyaa cidda xukuma, ciddana la warbixino. Qeexid. Organizational structure waa tilmaamaha muujiya sida shirkaddu u qaybisan tahay, cidda mas'uulka ka ah qayb kasta, iyo sida xogta iyo amarada ugu socdaan. Hoos waxaad ku arki kartaa tusaale qaab dhismeedka shirkadda: agaasimaha guud, maamulaha maaliyadda, maamulaha suuqgeynta, maamulaha howlgalka, shaqaalaha. Intaas ayay ku kooban tahay qaab dhismeedka oo shirkad. Tusaale: qaab dhismeedka heer sare ilaa heer hoose. Noocyada qaab dhismeedka. Nooca sharaxaad. Tusaale: hierarchical heer sare ilaa hoose. Ciidan, dowladda. Falaad heer yar, xorriyad badan. Startup-yada cusub. Matrix laba xukun isku jira. Shirkadaha waaweyn. Professional qaybaha gooni u shaqeysa. Multinational company iyo company oo multinational ah. Howlaha maamulka. Functions of management. Maamulaha waxaa laga codsadaa inuu qabanqaabiyo howlo kala duwan. Howlaha ugu muhiimsan maamulka waxaa loo yaqaanaa BOLCO ama BOLC. BOLC waxaa laga soo gaabiyey Planning, Organizing, Leading, Controlling. Intaas ayaa laga soo gaabiyey. Waataasaa hoostan noogu sharxaya BOLC ayuu hoos noogu sharxaya. Iyadu waa planning, qorshaysiinta yoolka iyo jidka loo gaaro. Owda waxaa weeye organizing, dejinta shaqaalaha iyo kheyraadka. L waa leading, hogaaminta iyo dhiirigelinta shaqaalaha. Sida waa controlling, kormeerka, hubi inay yoolku gaareen. Afarta howlood ee maamulka. BOLC model waxay u soo marteen BOLC, hadda dhawaan idin soo sharxayay. Howlahani waa wareeg joogto ah. Maamulaha wuxuu bilowdaa planning, markaas u gudbaa organizing, leading, dhamaadka controlling si uu u ogaado natiijada. Noocyada maareynta. Levels of management. Maareyntu waxay u kala qaybsantaa 3 heer oo kala duwan. Heerka magaca, hawshooda. Heer sare top management, qorshaysiinta guud ee shirkadda. Heer dhexe middle management, managers, xiriirka u dhexeeya heer sare iyo hoose. Heer hoose lower management, supervisors, kormeerka howlaha maalinlaha ah. Xasuusin. Heer kasta oo maamul waxa uu leeyahay mas'uuliyadiisa gaarka ah. Guusha shirkadda waxay ku xiran tahay sida 3 heer isu shaqaynayaan. Nidaam goynta go'aanada. Decision making. Mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee maamulaha waa inuu go'aanada saxda ah gooyo. Waxaa jira habab kala duwan oo loo isticmaalo. Rational decision making. Ururinta macluumaadka. Falanqaynta doorashada tan ugu fiican. Intuitive decision making. Ku tiirsanaan waayo-aragnimada, dareenka gudaha. Group decision making. Kooxdu waxay go'aamiso. Waxay keenaysaa fikrado kala duwan. Programmed decisions. Go'aanada caadiga ah ee laga soo shubay wararka. Non-programmed decisions. Go'aanada cusub ee adag ee aan horey loo gaarin. Aqoonsi mushkiladda. Ururi macluumaad. Falanqeyn doorashooyinka. Door iyo fuliyo tallaabooyinka goynta go'aanada. Hoggaanka leadership. Hoggaanku waa awood lagu dhiirigeliyaa dadka inay gaaraan yool gaar ah. Maamulaha waa inuu hogaamiyaa noocyada hoggaanka. Nooc astaamaha goorta loo isticmaalo. Autocratic. Maamulaha keliya go'aamiya xaaladaha degdega ah. Democratic. Shaqaalaha lala tashanaya. Goobaha fikradaha muhiimka ah. Laissez-faire. Shaqaalaha xorta ah. Kooxaha xirfadlayaasha ah. Transformational. Wax ka beddela hal-abuurka. Waqtiga isbeddelka weyn.
Fariin muhiim ah: ma jiro hoggaan ugu wanaagsan. Mid walba hoggaanku waa inuu ku habboonaado xaaladda, shaqaalaha, iyo heerka shirkadda. Qaab dhismeedku wuxuu muujiyaa sida shirkaddu ay u qaybsan tahay. Howlaha POLK waxaa laga soo gaabiyey Planning, Organizing, Leading, Controlling. Waa aasaaska maamulka. Maareyntu waxay leedahay 3 heer: sare, dhexe, hoose. Goynta go'aannada waxay u baahan tahay macluumaad, falanqayn, iyo doorasho saxan. Hoggaanka noocyadiisa waa kala duwan yihiin. Maamulaha waa inuu doorto kan ku habboon. Casharkeennii 2 ee Business Administration halkan ayuu inoogu egyahay, balse waxaan idin hayaa su'aalooyin oo imtixaan aan idinka qaadi rabo. 5 su'aalood. Su'aasha koowaad: sharax qaab dhismeedka shirkaddu oo tusaale siiso. Su'aasha labaad: waa maxay 4 hawlood ee maamulka POLK? Sharax mid kasta. 3. Kala saar 3 heer ee maareynta oo u sheeg hawsha mid kasta. Noocee hoggaanka ayaad u malaynaysaa inuu ugu wanaagsan yahay shirkad bilow ah? Maxaa darteed? Sharax tillaabooyinka goynta go'aannada. 5 su'aalood weeye. Jawaabteeda qaybta commentiga ayaad igu soo diri kartaan.